in adag heerkanayta qofku markuu gaaro waxa lagu tilmaami karaa mid aad u in adag waxaana ninkanayta uu sameeyay xitaa in booliska markaasayta uu wacay magaalada uu ku noolaa isagoo u sheegaya in qof markaasayta uu dilay waliba xaaskiisa ay tahay ninkan waxa uu sameeyay xaaskiisa in madaxa xabad uu kala dhacay isagoona xubnaha hoose ee lugaha ka jaray in midkeedii isagoo muddo 2 maalin finjeer ku haayo ninkanayta waxa uu sameeyay in booliska markaasayta uu wacay isagoona u sheegayo magaciisa iyo goobta markaasayta uu deganaa xilligaasayta waa uu ka tagay goobta markaa guriga waxa uu ku dilay laakiin fariinta booliska uu dhaafo waxa markaasayta ahayd in uu markaasayta u sheegayo booliska in gurigiisa adreeska isagoo markaa booliska u sii sheegay in halkaasayta qof uu ku dilay muddo 2 maalin halkaasayta ay taalo xaaskiisana waliba markaasayta ay tahay booliskuna in haatan markaasayta uu soo sheegay in uu dareemayo wax qalad inuu sameeyay sababta in la xiro inuusan dooneynin in booliska fariinta sidaasayta markaa uu la soo wadaagay isagoona u sii raacay booliska in halkaasayta si degdeg ay ku gaaraan bal haddii nafi markaa ay ku jirto qofkaasayta isaga uu dilay ninkanayta xaaskiisa maadaama uu dilayna uu booliska sidaasayta ku dhahay waxa uu dhahay booliska u taga haddii nafi ay ku dambeyso halkaasayta ka soo qaada qisada xamarkaasayta ay qosaysaa labadanayta lamaane ee lagu kala magacaabo Joseph iyo Samantha waxaana ay ahaayeen lamaane ku wada noolaayeen magaalo lagu magacaabo Oakland kana tirsan gobolka California ee dalka Mareykanka waxa lamaanahayti si wada jira markaasayta u wada noolaayeen waqti ku siman 12 sano ninkan Joseph hadii markaasayta aan fiirino yaraantiisa xilligiisii markaasayta ee nolol ahaan markaa dhalinyaronimadiisa ninkanaytii waxa markaa uu iska ahaa nin balwadaha xakaasayta ku foogan oo waxa markaa jirtaba in xilligii markaasayta uu jiray da'ada 20 sano in markaasayta mar la xiray oo boolisku xitaa marka ay dib u baareen marka haatan markaasayta uu dilay xaaskiisa waxa ay ogaadeen in ninkanaytii haatan hadda ka hor markaasayta loo soo xiray fal markaasayta uu ku lug lahay oo muqaadaraad waxyaabahaas markaa inuu isticmaalay balwado ninkanaytii waxa markaasayta balwadaha iyadoo noloshiisa markaasayta ay ku jireen laakiin xilliyadii ugu dambeeyay waxa markaa inta xaaskiisa uusan dilin waxa jirtay buuq isaga iyo xaaskiisa markaa ka dhex taagnaay oo sababta ugu weyn waxa markaa ay ahayd in xaggaasayta dhaqaalaha markaasayta isku haysteen ninkanaytan waxa markaa uu ahaa waayadii ugu dambeeyay haatan shaqo la'aan iyo markaasayta iska ahaa oo noloshiisa maadaama balwadan ay ku jireen xaalad markaasayta uu galay shaqo la'aan ah dhaqaale la'aanta city inuu is xakameyn kari waayo noloshiisii uu maamuli kari waayo tan qoyskiisa waxa markaa ay horseeday in xaaskiisii isaga markaa marar badan ay isqa qabsadaan arrimo dhaqaale la xiriira buuqna noloshooda markaasayta ay noqoto ninkanaytii waxa markaa uu shaqeynayay shirkad lagu magacaabo Toyota ee xarun ay ku leedahay magaalada City Oakland ee gobolka California isagoona markaa u qaabilsanaa dhanka city wax iibinta gawaarido kale in markaa u qaabilsanaa boolisku baaritaanada markii ay sameynayeen xitaa goobtiisii ugu dambeysay uu ka shaqeynay maadaama halka city ay ahayd oo ay soo wareysteen dadkii goobta markaa uu kala shaqeynay joogay warbixinada loo tilmaamo waxa markaa city ay ahayd in ninkanaytii mushaar nolol ahaan marka la fiiriyo title-ka markaa city uu joogay in aan laga filan karin in waxyaabahaas oo kale markaa city uu ku kici karo oo ninkanaytii waxa markaa laga filanayay in isku filnaan karo noloshiisa xaalad dhaqaale ahaan in markaasayta uu noqon karo oo dhaqaale wanaagsan iyo shirkadu markaas ku siineysay booskaasayta uu kaga shaqeynayay mushaar waxaana dadku xitaa markaasayta ka filan kareeyeen in ninkanaytii uu dhaqaale aruursan karaayo oo noloshiisa markaa uu ku maareyn karo xaaladaha isbedel haddii noloshiisa markaa ay ku imaado ninkan marka shaqada laga buriyana gebi ahaanba noloshiisa waa ay isbedeshay oo wax markaa uu noqday nin gebi ahaanba waxba aanan haysanin sidaas oo igtay oo kale dhaqaale badan oo noloshiisa markaa uu ku maareyn kara gacanta uusan ku haynin xaaladaasaytii buuqana maadaama waqti uu ku dhex jiray xoogaa waxa ay horseedeen balwadana noloshiisa ninkanaytii in markaa ay lahaayeen ninkanaytii waxa markaasaytii uu buuqaasaytii xamili kari waay ay noqotay in gebi ahaanba xaaskiisa markaa uu dilo waxyaabaa markaa la tilmaamana intii markaasaytii shaqada waqtiyadii ugu dambeeyay intuusan ka tegin ay ahayd in dadka goobta markaa kala shaqeynaya booliska marka baaritaanada ay sameynayeen warbixinta loo tilmaamay booliska waxa markaa kamid ahayd in ninkanaytii dabeecadiisa gebi ahaanba markaa ay isbedeleen ninkan maadaama horena markaasaytii uu ahaa qof shaqaysanaya oo dabeecad caadiya dadka markaa kula joogay oo qof markaa noloshiisa asagana markaa dib isku ah ama dadka dib ku ah aanan loo arkin oo qof caadi oo markaa shaqadiisa gudanaya dadkana macaamil wanaagsan la leh maadaama uu ahaa gebi ahaanba ninkanaytii waa uu isbedelay sida markaa ay tilmaameen dadka goobta kala shaqeynaya waxa ay tilmaameen in dabeecadda ay noqotay in ninkanaytii
shaqada markuu soo galo intuu shaqada joogo iyo markuu rawaxaba inta xilligaasayta laga gaaray goobta shaqada uu ku sugan yahay ninkanayta waxa uu ahaa nin gebi ahaanba markaasayta bedelan aamusan qof markaasayta xirxiran in marka uu ahaa oo dadka sidii hore uu ku ahaan jiray gebi ahaanba markaasayta kuma uusan ahayn oo dadku waxay tilmaameen in ninkanaytina marka uu ahaa nin aad u bedelan oo gebi ahaanba marka iska bedelay xaaladihii caadiga ee qof furfuran ama shaqadiisii iyo dadkii marka xiriirka kala dhaxeeyay goobta shaqada kula sugnaa gebi ahaanba marka inay istaagtay oo ninkan uu ahaa qof gebi ahaanba markaasayta iska xirxiran waayadii uu dambeeyay shaqada way ka istaagtay ninkaniti noloshiisa waxa marka ay noqotay in xogaha shaqo la'aan waqti marka uu noqdo shaqooyin kale inuu raadiyo in kale marka lama sheegin laakiin xilligaasiti shaqo la'aanta uu noqday maadaama balwado noloshiisa marka ay ku jireen waxa dhacday in uu xamili kari waayo uu xakameyn kari waayo nolosha qoyskiisii marka ninkaniti oo dhaqaal ahaan gebi ahaanba markaasiti uu noqday mid burbur ku yimaado maadaama marka horena uu iska ahaa qof shaqaysanayo shaqada sitii waxyaabaha marka uu ka helo reerkiisa uu ku masruufi jiray gebi ahaanba markay soo istaagtay shaqada waxa uu noqday in xaalad adag qoyskiisa marka ninkaniti ay galaan xaaladda sitii waxay horseetay in gabadhi marka ninkaniti uu qabay dhowr mar isku dhacaan isku buuqaan ninkanitina maadaama uu xamili kari waayo buuqaasiti waxa marka uu go'aansadaba in gabadha xaaskiisa gebi ahaanba markaasiti uu dhameeyo xilligaasiti waxaa jiray maalmo ka horeeyay in markaasiti uu soo qaatay gaari uusan hore u haysan jirin oo kale oo qorshaha waxa markaasiti aan la iclaamin oo la sheegin in hore markaasiti uu sii qorsheeyay iyo wax sikadiisa marka ugu dhashiinaysan inay ahaayeen markaas oo walaashiis oo maraysi mar bixinaysa taa booliska markii baaritaanada ay sameynayeen waxay u tilmaamtay in diris marka ay la ahayd walaalkee inta marka xaaskiisa uusan dilina in markaasiti ay jirtay xaalad buuqa oo iyaga marka dhexdooda ka taagan dhaqaalana dhankaasiti marka la xiriirtay waxay dhacday marka qaar way isku dhici jireen waa ay buuqi jireen laakiin xaaladdu ilaa heerkaniti inay soo gaari karto ma aysan filaynin gabadhaniti walaasha la ah ninkaniti wax dilay oo ninkanitina waxa markaasiti uu sameeyay maalmahaasiti oo dilka intuusan geysanin ka hor oo ku aadan subaxnimadii markaasiti maalintii taariikhda ay ku beegneed 7 bishii 11aad 2014 waxa markaa jirtay maalmaha ka horeeyay maalinta city ninkaniti gaari cad uu soo qaatay oo waxa jirtay qayb guriga marka city uu lahaa oo garage ah oo halka city marka gaarigan uu yaalay sidoo kale halka city waxa yaalay furniture oo halka city marka iska yaalay ninkaniti maadaama uu xamili kari waaye nolosha iyo sida qoyskiisa marka city uu kula noolaa waxa marka uu sameeyay in gaariga city halka marka uu ku soo baakintay oo ninkanitina waxa marka uu ekeed in qorshahana marka uu mararka city mar u dhow marka ay ku soo dhacday in gabadhaniti oo xaaskiisa marka uu dhameeyo ninka wax dilay walaashiis maadaama diris ay la ahayd waxyaabaha ay sii tilmaamtay haddana waxa kamid in marka ay tiri xilligaas gaariga city marka maalmaha city waan arkay maalinka dilka uu geysanayo maalmaha ka horeeyay oo gaariga maadaama diris uu nala ahaana waa aragnay in guriga marka city uu iimaanayay waxay tilmaamtay ninkeeda in marka city ay ku dhahday galbaha kamid ah galbihii ugu dambeeyay inta marka city aan gabadha xaaskiisa ninkaniti uusan dilin in ninkaniti walaashiis maadaama diris ay la ahayd ay tilmaamtay tiri gaariganiti dhowr mar iyo xaafadda ku aragnay laakiin wax weyn kama soo qaadin waxa marka city isdaane waa gaari oo marka city iska yimid wax weyn oo saasada kanna marka ma aysan gelin laakiin waxay dhahday waan dareemayay in marka gaariganiti uu yahay gaari aan hore xaafadda u imaan jirin oo ka bedelan gawaarida marka aan ku arki jiray deegaanka ninkaniti waxa uu sameeyay in habeenka city si caadiya gabadhaniti xaaskiisa uu kula hoyday oo wax dhibaato marka city buuq oo kale uma uusan muujinin laakiin waxa jirtay in ninkaniti walaashiis maadaama diris ay la ahayd ay tilmaamtay in habeenka city buuq kale u dhaxgalay ninkaniti oo xaaskiisa isaga mar kale isqabsadeen oo kale waxa marka jirtay in xaaskiisa iyo ninkaniti marka ay isku dhaceen xaalad dhaqaale maadaama ay taagneed buuqooda marar badan uu soo dhacay ninkan waxa marka city u sameeyay si caadi marka ay wada hoydeen in uu soo qaatay bistoolad sirrta idoo marka dul jiifta in madaxa xabad xaaskiisa marka uu kala dhacay waa uu soo qaaday meedkeeda si marka city uu qoriyo aan loo ogaanin waxa uu sameeyay in furniture meesha marka garaashka qaybta ah ee guriga marka city uu leeyahay furniture halka city dhex yaalay ninkaniti waxa uu go'aansaday in halka city gabadhan xaaskiisa ah ee uu dilay meedkeeda halka city marka inuu ku rido
finijeerkii waa uu u geli waayey meydka waxa marka uu sameeyey in gebi ahaanba markaa xaaskiisii lugaha uu ka jarjaray oo sidaasaytii markaa intuu isku laabay finijeerka markaa qasab uu ku geliyey halkaasaytii waxa uu ku hayay muddo 2 maalin iyo 2 habeen ah 48 saac waxaana markaa xaafadda uu ka tegey oo boolisku waxa markaa uu wacay subaxnimadii marka ay soo galaysay maalinkaasaytii 7 bishii 11aad 2014 abaaro waqti markay ku aadan tahay 8 saac 45 daqiiqo oo habeennimo iyo markaasaytii wacay booliska isagoo u sheegay oo dhahay waxa la dhahaa magacayga Joseph waxa markaa deganahay halkaas waxaan dareemayaa in aan sameeyay wax qaldan waxa aan dilay xaaskeyga oo xabad madaxa markaasaytii aan kala dhacay waxa ninkanaytii boolisku u sii raacay xilligaasaytii isagoo markaa ku dhahay meydkeeda waxaan dhex geliyay finijeer yaalay qaybta garaashka ee guriga markaasaytii aan deganahay baxa halkaasaytii markaa u taga xaaskeyga waa aan jeclahay waxaan dareemayaa in aan sameeyay wax qaldan mana doonayo in la xiro iyo ninkanaytii booliska markaa uu sheegay isagoo markaa ku dhahaaya booliska ninkanaytii maadaama uu warbixintu u sheegay inuu dhahay booliska baxa halkaasaytii taga isaga goobtu markaa uu ka tagay xilligaas waxa ku dhahay booliska baxa halkaasaytii taga qaybta saytii garaashka markaa guriga aad tagtaana finijeerka dhex yaala waxa jirta gabar xaaskeyga oo madaxa bistoolad xabad aan kala dhacay halkaasaytii markaa tagtaana meydka markaa ka soo qaada haddii markaa qofka nafna ay ku jirta sidaasaytii markaa ku badbaadiyay isagoo markaa u sii sheegay in aad ay u qabowday oo u dhahay ninkanaytii gabadha xaaskeyga maadaama aad finijeerkana ku hayay aad iyo markaasaytii u qabowday ee ka gaara booliska isagoo markaasaytii u sheegayo boolisku warbixinta markay record gareeyeen ninkanaytii waxyaabaha markaasaytii uu sameeyay kalena waxa markaa ay ahayd in xilinimadii subaxdiga ah markaasaytii uu sidoo kale walaashiisa u wacay isagoo markaa u sheegay gabadha xaaskiisa inuu dilay oo sidaasaytii markaa warbixinta markaa uu sii sheegay boolisku waa ay soo baxeen isla habeennimadiiba waxa markaa ay yimaadeen gurigii markaasaytii loo soo tilmaamay iyagoo markaa sii tegana qaybta garaashka ee guriganaytii markaa uu lahaa waxa halkaasaytii yaalay finijeer waxaana markaa uu xaqiiqsadeen ninkanaytii waxyaabaha markaasaytii uu sheegay in xaqiiq markaasaytii ay ahaayeen qaybta garaashka ee guriga waa ay galeen finijeerka marka ay fureenna waxa markaasaytii ugu dul tageen halkaasaytii ninkanaytii gabadhii xaaskiisii markaa uu dilay isagoo markaa iyadoo lugaha ka jaran in finijeerka iyadoo isku laabanna markaasaytii uu geliyey in ay boolisku markaa ka soo bixiyeen finijeerka boolisku si markaa waxyaabo kale ay halkaasaytii kaga sii raadiyaanna waxa markaa ay sameeyeen in guriga baaritaanna markaasaytii kusii sameeyaan ninkanaytii bilow dad kalena halkanaytii markaa uu ku dhibaateeyey maadaama xaaskiisa halkanaytii uu ku dilay boolisku waxa markaa ay raadiyeen cadeymo ama dad kale uu meeshanaytii ninkan ku dilay laakiin wax cadayna markaa kama aysan helin gurigana xilligaasaytii waxa markaa u ekaa guri dhiigba markaasaytii badan oo meelaha markaa daashka ama barandadoo kale aysan ka muuqanin boolisku laakiin baaritaanadoodii markaa waa ay sii wateen guriga meelo badan markaa inay ka eegaan si markaa wax uun cadayna markaasaytii ay u helaan boolisku waxa ay markaa u dul tageen qaybta markaa jiifka qolka markaasaytii guriganaytii uu lahaa waxa halkaasaytii ugu tageenna sariirtii oo dhiig markaasaytii badan uu buuxiyey ninkanaytiina waxa uu sameeyey sariirtii ma uusan ka tirtirin dhiigga laakiin intaan kale guriga meelaha markaasaytii uu soo marsiiyey ilaa qaybta garaashka marka uu keenayay gebi ahaanba dhiiggii waa uu ka nadiifiyey halkaasaytii booliska cadeymaha iyo markaasaytii ka soo aruursadeen gabadhanaytiina waa ay dhimatay boolisku waxa markaasaytii ay sameeyeen in ay warbixino iyo baaritaano markaa ninkanaytii ku sameeyaan si ninkanaytii gacanta ay ugu soo dhigaan mas-uuliyaddana markaa ninkanaytii isaga markaa ay ugu maxkamadayaan ninkan waxa markaasaytii dhacday in waaran markaasaytii loo jaro warbixintiisa xitaa markaa lasoo daawaco iyadoo dadka lagu wargelinayo laleeyahay ninkaasaytii inuu baxsad uu yahay booliskuna markaasaytii ay doonayaan xogtiisa si markaa loo soo qabto maadaama ninkanaytiina uu dilay xaaskiisa ninkan waxa markaa warbixinada booliska marka ay ka aruuriyeen goobtiisa shaqa ay ahayd in dadku markaasaytii ay la yaabeen ninkan xitaa markaa goobta markaasaytii uu kala shaqeynayay oo hore uu ka shaqeynayay Toyota marka boolisku ay warsadeen halkaasaytii ay tageen dadka si ninkanaytii xogtiisa waxa ay uga helaan in dadku markaasaytii ay la yaabeen oo ninkaasaytii is dhahayeenba in dhaqaale wanaagsan haysta waaye dhibaato iyo waxyaabo markaasaytii dil ama dhibaato kale markaasaytii xogaa qof noloshiisa ay u hagaagsan tahay marka dadku u filayeen maadaama
mushaar fiicanna uu ka qaadanayay shirkadda xilligaasaytii marka uu la shaqaynayay ninkan waxaa markaa la dhihi karaa waxa sidaasaytii u galay waa balwadda oo ninkan gebi ahaanba dhaqaalihiisii burburisay goobtiisa shaqada marka laga buriyana ninkaniti waxa markaa uu noqday baylah nin dhaqaale markaasaytii aanan haysanin oo buuqa familigiisa markaa ee dhaqaalaha horseedana waxa uu sabab u noqdayba buuqaasaytii ninkaniti uu xamili kari waayo duruufaha nololeed ee ku gadaaman isaga iyo qoyskiisa in markaa uu xakameeyo maadaama dhaqaalena markaasaytii uusan u haynin sidaasaytii falka dilka ah markaa inuu ku geystay ninkan boolisku muddo iyo baadi goobayeen waxaa markaa ugu dambeyn u suurta gashay in markaa ninkan magaaladii uu deganaa kama uusan bixin oo gaarigii markaasaytii cad boolisku markaa warbixinada markaasaytii ay ku tilmaameen oo maadaama ninkaniti warbixinadiisa markaa la aruurinayo boolisku ay wareysteen gabar walaashiisa oo deris la ahayd iyo dadka kale ee deriska xaafadaha markaa xog waxa ay ka heli karaan gaariga waa loo tilmaamay sida markaasaytii uu yaalay oo ninkaniti waxa uu ahaa gaariga nin xaafadda markaasaytii ku imaanaya maalintaasaytii dilka uu geysanayo maalmihii ka horreeyey xaafadda si caadi uu gaarigaasaytii markaa ugu imaan jiray boolisku gaarigaasaytii xogtiisa waa ay rikood gareeyeen oo waxa markaa ay daba galeen in ninkaasaytii bilow gaarigaasaytii haddii ay raadiyaan xog ninkaniti markaa ay ka heli karaan waxaa markaa jirta isagoo goob ka mid ah magaalada markaasaytii ku suganaya xilligaasaytii ninkaniti maadaama uusan bixin oo ninkii warbixinta soo gudbiyeyba isaga markaasaytii uu noqdayba oo booliska markaasaytii intuu soo wacay ku dhahay wax qaldan inaan sameeyaan dareemaya xaaskayga waa aan jeclahay madaxana xabad markaasaytii kala dhacay halkaasaytii taallaa ka gaara bal haddii nafi ay ku dambayso maadaama booliska markaa uu isaga warbixinta la soo wadaagay boolisku ninkan magaciisana waa uu usii sheegaba oo Joseph in markaasaytii la dhahay boolisku warbixinada saytii isku aruursadeen in markaasaytii sidoo kalena ay walaashiis warbixino kale markaa booliska ay siisay waxa markaa dhacday in maadaama uusan ka bixin magaalada uu deganaa in booliska markay u sahlanaato in ninkaniti gacanta ay ku soo dhigaan sidaasaytina markaa xabsi ninkaniti uu ku wajaho waxaana ninkaniti uu noqonayaa nin indha adeegiisa heer markaasaytii uu gaaray inta booliska marka uu wacay ku dhahay xaaskayga yaa markaa dilay waa aan jeclahay wax qaldan in aan sameeyaan dareemaya isagoo xaaskiisana markaa dilay muddo 48 saac ka badan meedkeedan ay agtaale in markaa booliska uu ku dhahay xaaskayga waa aan jeclahay goobtaasaytii taga badbaadiya haddii nafi markaasaytii ay ku jirto isagoona booliska usii sheegayo ku dhahay aadna way u qabowday oo Nigeria muddo 2 maalin wax ka badan markaasaytii ku hayay